aan u yeedho nin ka mida ururka dhalinyarada iyo ardada Soomaalida ogaadeynaya OYSU USA waa nin aan in badan ku arkay saxaafadu iyadoo tabinayso waxaan filayay nin aad u weyn oo at least sida Maxamuud Axmed Jaalle oo kale nin xoogan baan mooday waxa ugu soo baxay wiil yar oo dhuuban oo run ahaantii waxyaabaha ay saxaafadu ku qortay isaga marka ay aragtay aad isugu keenin ila soo dhaweeyay fadlan Shaafi Cabdi oo ku magac dheer Shilaabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم السلام قال يا دمانتين. أولاً مركوها الرئيسة إلهي أيام مهدله إلهي يجي سورة جريئي كلن كان قيمها بدن إنه سوق إيمانه مقالة تورنتو إنه كلا نمد جوبا كلا جديسن وعالم قدافيه ساء وحن مركوه رؤمها العلن يا شالية درهيرو قاعدين يا ودن ككندا ورنهانتي سورة جلسي si wanaagsan u martiqaaday in uu qabsoomo shirki jaaliyadaha reer ogaadeynaya ee sanadkan oo hadda goobjoog aan ka nahay waxaan marka labaad xigta salaamayaa mas'uuliyiinta jamhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya golahooda dhexe iyo guddigooda fulinta waxaan si aad u salaamayaa ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeynaya oo ah midka ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeynaya oo ah wiilasha har iyo habeen xabadu u dubanayso sanbabadooda iyo jirkooda iyaga oo xabada uga adkaystay Etoobiyana barbar dhigay run ahaantiina aad u wiiqay si ay u soo dhiciyaan sharafteennii sumcadeennii jiritaankii ummadda Soomaalida ogaadeynaya ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeynaya wuxuu beeniyay oo uu barbar dhigay isku daygii ay gumaysiga Abasiiniya muddada dheer isku dayayeen in ay naga tirtiraan jiritaanka geeska Afrika laakiin ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeynaya ayaa beeniyay aadna aan uga mahad celinayaa aniga oo ku hadlaya codka ururka dhalinyarada ardayda Soomaalida ogaadeynaya waxaan rabaa wax yar in aan idinka ifiyo taariikhdiisana bal aan idin la socodsiiyo midowga dhalinta ardayda Soomaalida ogaadeynaya sidoo ku bilowday iyo meesha uu hadda marayo iyo sidoo taariikh ahaan ku imaaday iyo natiijooyinkii uu gaaray tan iyo intii uu jiray iyo wax uu higsanayo mustaqbalka hadduu Ilaahay idmo muddo ka hor waxaa jiray caalamka daafihiisana ka shaqeynayay ururo kala gagadisan oo ka kala shaqeynaya qaaradaha Northern America Europe Australia iyo Africa ururadaas oo ahaa ururo dhalinyaro oo u taagnaa gobonnimadoonka shacabka Soomaalida ogaadeynaya iyaga oo midnimo ka dhaxaysa ayna jirin laakiin qolo walba meesheeda ay ka howlgali jireen kacdoomadaas oo ka kala bilowday markii u horeysay meesha la yiraahdo Minnesota iyo London UK kadibna qolo walba ay qaaradihii kala gaargaadhay ilaa shanta qaaradood ay ka howlgaleen waxa qaaradda North America ugu xoogana ururka kacdoonka dhalinta ardayda ogaadeynaya ka shaqeynayay muddo dhowr sano ah ururkii Ogaden Youth Network kaas oo run ahaantii ka bilowday asaaskiisii hore magaalada gobolka Minnesota magaalada Minneapolis hase ahaatee gaaray guud ahaan qaaradda North America waxa sidoo kale jiray ururkii OYL oo ku midoobeen qaaradda Europe waxa isna jiray Ogaden Youth Forum oo mideeyay qaaradda Australia waxa isna sidoo kale jiray Somali Ogaden Youth Alliance oo ka jiray qaaradda Africa muddo markii ururadaasi ay shaqeynayeen waxaan yeelanay xiriir iyo wada shaqeyn iyo bal sidii aanu isugu imaan lahayn oogana tashan lahayn aayaha ummadda reer ogaadeynaya waxaan ka mid ahaa anu shakhsi ahaan markaa maamulkii OYN qaaradda North America waxaan xiriir yeelanay midayntuna ay ku imaatay kadib markii annaga OYN North America ahayn iyo Ogaden Youth League oo Europe ka shaqeynayay xiriir joogto ah aan yeelanay labada urur ugu xoogan ururada dhalinyarada aan ahayn waxaan isla meel dhignay sidii aan u barbar dhigi lahayn ana isugu imaan lahayn uguna midoobi lahayn hal mabda hal fikir hal ra'yi iyo hal ujeedo taas oo ah xornimada shacabka Soomaalida ogaadeynaya waqti yar oo kooban kadib waxa noo suura gashay in qaaradda Australia iyo Afrikaba
dhallinyaradii kale ee iyaguna ka shaqaynayay aan xidhiidh iyo connection wada yeelannay halkaas oo dhammaantaanno conclusionka aan isugu soo biyo shubannay in ay lagama maarmaan tahay in la mideeyo xoogga iyo tayada ururka dhallinyarada ardayda ogaadeynaya ururka dhallinyarada ardayda soomaalida ogaadeynaya wuxuu isugu yimid oo kulan weynihii ama kala fadhigii u horreeyay uu ka dhacay magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark bishii June 27keedii halkaas oo lagu mideeyay dhammaan ururada dhallinyarada reer ogaadeynaya oo ay ku midoobeen magacan hadda aan wadanno oo ah Ogaden Youth Student Union ama midowga dhalinta ardayda soomaalida ogaadeynaya haddaba maxay ahayd ujeedadii iyo sababtii loo mideeyay ama la isugu keeno ururkan ahmiyadda loo sameeyay OYSU maxay ahayd maxaa kalifay in dhalinyartan la isku keeno maxayse tahay waxa aan ka duulayna ee nawado kow ku dhaqanka caqiidada islaamka ah iyo tala saarashada Eebbe subxaanahu wa tacaala maadaama oo nahay dad islaan ah oo ku nool wadamada kala gedisan ee caalamka in aanu noqono dad ku dhaqan kuna tiirkooda koowaadna uu yahay diinta islaamka iyo sidii aanan u ilaawi lahayn maadaama oon qurbo joogno dhaqankii sooyaalka ahaa ee ummadda Soomaaliyeed ay lahayd ee gaar ahaanna loogu yaqaanay haddaanu nahay shacabka reer ogaadeynaya mideynta fikirka dareenka iyo itaalka dhallinyarada ardayda soomaalida ogaadeynaya dunida xorta ah in loo bandhigo xadgudubyada iyo dulmiga gumaysiga abasiiniya shacabka soomaalida ogaadeynaya uu ku hayay muddo aad u badan run ahaantii in aan saaxiibo oga sameeyno qadiyadda ogaadeynaya taageerayaalna loo kasbo muwaadiniinta dalalka aan ku noolahay ama ururka OYSU uu ka shaqeeyo in la kobciyo wacyiga siyaasiga ah iyo aqoonta dhallinyarada iyo ardayda ogaadeynaya ee la xiriidha fahamka sooyaalka juqraafiga waayaha iyo duruufaha dalkeena hooyo ka jira iyo marxaladihii kala gagedisnaa halgamadii gobonnimo doon ee uu soo maray ummadeennu ama waddanka ogaadeynaya in ay noqdaan dhallinyaradu kuwa ka dhisan oo yaqaana meesha ay taariikh ahaan ka soo jeedaan meesha ay maabka caalamka kaga yaalaan iyo meesha ay ummadoodu ku dambayso iyo dhibka iyo waxa ay ummadoodu ku sugan yihiin in aan barro oo ku tababaro kuna carbino dhallinyarada reer ogaadeynaya ee adduunka daafihiisa ku nool dareen wadaninimo maadaama oo badankood aynan chance u yeelanin ogaadeynayada la sheegaya inay arkaan ay tahay un maqal oo waalidiintooda ay ka maqlaan ama ehelkooda ay ka maqlaan ehelkoodna badankooda uu jiro laakiin dhallinyaro qurbo ku kortay waxana aan xoogagaal ka ahayn ay yihiin haddii aanu nahay ururka OYSU waxaan go'aansanay sidii aanu u soo bandhigi lahayn dhallinyaradana aan u fahansiin lahayn kow meesha ay ka soo jeedaan dadkoodu waxa uu yahay dhibka lagu hayo iyo waxa ay ku sugan yihiin waqtigan xaadirka ah kadibna sidii ay arrinta iyada ah ee shacabka Soomaalida ogaadeynaya haysata dhallinyaradani oo asal ahaan ka soo jeeda sidii ay wax oga qaban lahaayeen uguna gurman lahaayeen waxaa kaloon xoogga saarina ahmiyadda OYSU ay ahayd in la tixgelinta iyo ku dhaqanka nidaamka isku tashiga iyo midnimada in aan dhallinyarada ka midayno fikirkooda iyo dareenkooda oo noqono kuwo hal go'aan leh kuwo hal meel u jeeda in uu sacadowgu naga faa'iideysanin dhallinyarada reer ogaadeynayana ay noqdaan kuwo hal gool iyo hal mishin iyo hal fishin leh oo hal meel ka soo wada jeeda dhammaantood hal codna ku hadla wax walbana sax iyo khaladba hal meel ka taageera haddaba maxaa qabsoomay intii la sameeyay ama la mideeyay midowga dhalinta ardayda Soomaalida ogaadeynaya waxaa noo qabsoomay xaqiijinta iyo taabagelinta ujeedadii loo sameeyay OYSU muddo kadib in aan dhalinta ardayda Soomaalida ogaadeynaya caalamka daafihiisa ku nool aan barro ku dhaqanka xeerka iyo sida go'aamada loo qaato ururnimada ah sababtoo ururku constitution ayuu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn ayuu leeyahay sidii uu u hirgeli lahaa loona waxayn lahaa laga soo bilaabo bishii June 27keedii 2010kii fidinta iyo gaarsiinta himilada OYSU dhammaan dhallinyarada dacallada adduunka ku nool daafihiisa kala duwan hadday yihiin kuwa Soomaaliyeed hadday yihiin kuwa ajaanibta ah hadday yihiin kuwa ogaadeynaya laftirkeeda u dhashayba waxaa la mideeyay dhaqaalihii dhallinyarada dhaqaalahoodii shaqooyinka urur hoosaadka u qaban jiray kala gagedisnaa sida barnaamijyadii kala ah shirarka qaaradaha
shirarka urur hoosaadyada wuxuu ururku leeyahay shir waddan walba shir gooni uu leeyahay qaarad walbana shir bay leedahay oo urur hoosaadyada qaaraddu uu isugu imaan mid kale haddana waxaa jira kuwa world wide ah oo caalamka dhan uu isugu imaaday kuwa Yurub iyo kuwa Afrika kuwa Asia kuwa North America ay ku mideynayaan shirarkaas oo lagaga hadlo laguna qiimeeyo geedi socodka halganka reer Ogaadeenaya iyo kaalinta ay kaga jiraan ururka midowga dhalinta ardayda Soomaalida Ogaadeenaya ururku haddaba wuxuu qabtay kulamo kala gagadisan oo kulan weynayaashii baan ka hadlay kuwa qaaradda ma aha waxa noo suura gashay bishii December 2010kii kula fadhigii u horeeyay inaan ku yeelano geeska Afrika gaar ahaan waddanka Eritrea oo isugu tageen dhalinyaradu halkaas ay ku soo qiimeeyeen marxaladaha kala gagadisan iyo sanadka soo socda ururku wuxuu u hirgelin doono iyo action balaankii sanadkii 2011 lagu shaqeyn lahaa waxa sidoo kale hirgalay kala fadhigii labaad isna ka dhacay Germany bishii December 2011kii kaas oo laga hadlayay xaaladaha intii ururku uu jiray iyo waxa uu higsanayo iyo go'aamada uu rabo mustaqbalka inuu higsado xeerkii oo dib loogu noqonayay maskaxda iyo fikirka iyo dareenka dhalinyarada oo aragtidooda iyo ra'yigooda iska kaashanayay maadaama meelo kala gagadisan ay ku nool yihiin inay isbartaan qolada North America ku nool ay kuwa Europe la shargareen waxay kaga duwan yihiin kuwa Afrika ay ku soo siyaadiyaan kuwa Europe wax ayna Europe laga aqoonin kuwa Australia ay ku soo siyaadiyaan Europe waxaan laga aqoonin oo dhammaan dhalinyaradii qolada kale ay wax ka qaadato oo ay isku helaan chance ay isku bartaan kagana wada hadlaan ayaa ka tashigooda iyo mustaqbalkooda haddaba ka soo noqoshadii kulamadii ka dhacay geeska Afrika iyo Germany sanadkii 2010 iyo 2011kii waxaa lagu soo dejinayay mid walba action plan iyo qorshe sanadeed oo gaar ah ururka waxa la dhaqan geliyay action plankii 2010 iyo 2012 waxa isbedel ku yimid abaabulka kacdoonka dhalinyarada reer Ogaadeenaya oo run ahaantii muddadii hore ayna dhalinyaradu midaysneen ayna ka jirin baaxad aad u weyn iyo saameyn aad u weyn ku yeeshay halganka gobonimo doonka Soomaalida Ogaadeenaya oo kaalin culus ay ka qaataan har iyo habeen ay wada shaqeyn iyo midnimo ay ka dhaxaysay iyaga iyo jaaliyadaha reer Ogaadeenaya oo ay ku nool yihiin laan ka hoos baxday jaaliyadaha reer Ogaadeenaya guddiga fulinta OYSU waxay ansixiyeen maamuladii hagi lahaa ururada OYSU sida maamulka qaaradaha Yurub iyo Afrika iyo Asia iyo North America ururku wuxuu yeeshay aalad isaga u gaar ah oo ku hadasha magaca guud ee ururka OYSU sida website bay leeyihiin waxay kaloo yeesheen Facebook oo ururku mar walba ku update gareeyo informationkiisa iyo waxyaalaha u qabsoomay iyo go'aamadiisa iyo howlaha soo waxay sidoo kale Twitter waxa ay soo saaraan baaqiyo waxaan soo saaraa cambaareen waxaan ku soo daabacnaa kulamada joogtada ah ee noo qabsooma waxa soo kordhiyay mar walba xubnaha ku soo biiraya urur hoosaadyada adduunka ku kala nool ee OYSU waxa ku soo biiraya dhalinyaro yar oo aad u firfircoon meel walba caalamka joogan waxba ku soo siyaadahaya waxa kamid ah dhalinyarada aan abuurayna dhalinyaro run ahaantii aad u da'yar oo noo suura gashay badankood in aanu fahansiino qadiyadda halganka Ogaadeenaya iyo waxa ay yihiin wax mustaqbalka sugaya annagoo go'aanka annagu haddaan nahay OYSU uu yahay dhalinyarada yar-yarka inaan taarget gareeno in aan abuuro ubixi dhalinyarada reer Ogaadeenaya in aan abuuro kuwii annaga nooga dambeyn lahaa maadaama annagu naloo soo dhiibay kuwa hadda noo dhiibeen kuwa kale u soo dhiibeen oo run ahaantii halgankan uu yahay halgan qori isu dhiiba muddo ka hor waxa ahaa ururkii dhalinyarada ardayda Ogaadeenaya mas'uuliyiinta hadda halkan fadhida waxa ahayn OYSU-dii hore kuwan kale waxay ahayn qolada qolay u soo dhiibisay halganka ninba ka soo dhaxlayay maanta ana haya haddii aan xornimada Ilaahay amarkii ku higsanin oo inta nasiib aan ku waayo iga yar iga dambeeyaan rajaynayaa inuu waxeeyo oo uu noqdo fadhig ama bahalkii ururka OYSU wuxuu qaybo kamid ah ay ku guuleysteen inay members kan ama xubno ay ka noqdaan dhalinyaro da'dooda u dhaxayso 10 jir ilaa 15 jir annagoo qorshahanaga iyo go'aankanagu uu yahay in dhalinyarada yar-yarka ah ee soo barbaaraysa ee awoodda iyo power kale dhalinyaradan run ahaantii qurbaha ku dhashay wax badan ayay halganka Ogaadeenaya ka qaban karaan 7 jirka mise 5 jirka mise 6 jirka markaad ku barbaaraysa halganka wax badan ayuu bedeli go'aankanagu waxa weeye ilmaha reer Ogaadeenaya u dhashay ee ama qurbaha ku nool ama gudaha ku nool ama meel walba ku nool marka uu gaaro 15 jir da'da 15 jir in uu diyaar u yahay una bisil yahay heer hogaamineed wax uu hogaamiyo ummadeennana uu horu socod u sameeyo isku xidhna uu sameeyo run ahaantii aad baan uga xumahay waxay OYSU qabatay iyo wax qabadkeedii ma soo koobi karo
oo aad bay u dheer tahay laakiin waxaan idin sheegayaa ururka OYSU waa urur u taagan badbaadinta shacabka Soomaalida ogaadeynaya xuquuqda shacabka ogaadeynaya waa codkii ummadda codlayaasha ee Soomaalida ogaadeynaya go'aanka anaguna waxa weeye wax kala ma ahay in aan higsano guusha kama dambaysta ah macnaha anagu aan u jirro ama naloo sameeyay ma aha inaan ka shaqeyno Mareykan iyo Canada iyo UK iyo bahalkii iyo waxaan rabnaa in aan hirgelin iskuna xidhno dhalinyarada ku nool qurbaha iyo kuwa ku nool gudaha ogaadeynaya insha Allah ta'ala kuma faanayo hadal la igama aha laakiin mar dhow oo fogeyn waxaad maqli doontaan OYSU dhagax buur OYSU fiiq OYSU goday OYSU bahalkii waxaan nahay awoodii iyo quwadii ummadda Soomaalida ogaadeynaya shidaalkeedii waxaan ku tala jiraa insha Allah ta'ala in geeska Afrika aan ka sameeyno kacdoon gobonimo doon halganku marba meelbu ururku maraya kooban jiray sanadkii hore sanadkan waa 2 jirsan 2 jir weeye ururku ilmaha markaba iskama ordo oo kaco marka hore sida dhinac loogu saxdo baran kadib uu fariisan kadib uu gurguuran kadib uu socon hadda talaabaqaadkii baan ku jiraa laakiin waxaan rabnaa ururadii dhalinyarada ee Carabaha oo kale sida ay uga sameeyeen isbedelka iyo guuxi ka dhacay Carabaha oo kale in aan revolution ka sameeyno geeska Afrika in aan noqono kuwa Itoobiya gilgila kuwa kaligi taliya zanaawi ku khasbasan kana kaga dura in uu miiska soo fariisto jaaliyadaha reer ogaadeynaya iyo ururka dhalinyarada ardayda reer ogaadeynaya oo iskaashanaya waad la socotaan xogagaalna waad ka tihiin kaligi taliya zanaawi maanta meel cagdhiga uu leeyahay meel uu ku hagaago uu leeyahay meel walba uu tago jaaliyad baa ku sii sugaysa meel walba uu tago ummadii reer ogaadeynaya wada socota ayaa ku sugaysa waqti yarna uu ku xaadiri leeyahay waxaan ku khasabnay in weji gabax dartii oo uga baaqdo kulamada caalamka uu ka qayb gali lahaa kuwa uu ka qayb galana gabasho iyo fuleynimo iyo cabsinimo oo uga qayb galo haddaba waxaan ku soo gunaanadahayaa dardaaran yar oo kooban kaas oo ah ku wajahan bulshooyinka meeshan fadhida gaar ahaan waalidku gaar ahaan hooyooyinku waa laf dhabarta halganka halkan inaan soo istaago oon maanta hadlo hooyaday ayaa u sabab ah ma hadleen hooyaday la'aanteed hooyaday anoo 6 jira ayay igu soo ababisay 8 markii aan jiray nin firfircoon oo halganka u dhagan nugul oo kala bartay oo kala fahmay oo ku koray oo ku barbaaray baan ahaa da'da 15 markii aan gaarayna waxaan ku soo biiray oo ka mid noqday una tababartay carbinteedan aan galay sida wax loo hogaamiyo haddii ay noqon lahayd taaliidaha ama dhalinyaradii ama meelii aan ka soo howlgelayay sidaa la aadligeed hooyooyinku waa furaha carruurta waxaan u dhaqmay sidii hooyaday igu hagto ama aabbaha igu tababaro waxaan idinkula dardaarmahayaa haddii xornimada ogaadeynaya aan rabno innaga gacanteena ayay ku jirtaa aan fasaxno aanana sii dayno carruurta gacanteena ku jira carruurtu waa awoodeennii meelo ayna inagu furi karin ayay ciyaalka aan haysanno furi karaan waa dad wax bartay waa dad waddan ku nool waddamo caalami ah ku nool waa dad iskuul aada waa dad wax fahmaya suxufiyiinta la xiriiri miidiyaha xooga saari iskuulkay ka soo dhaadhicin jaamacaday u gudbin sanatarkoodii dawladooda ka dhaadhicin petition bay sameeyeen intaas oo baawar bay leeyihiin laakiin koormay sameeyeen marka waalidku uu kula xisaabtamo qadiyada ogaadeen wuxuu ilmahooda u qabtay marka ayuu ilmaha hormar iyo talaabo qaad uu sameyn karaa idinka ayaa furo ah waxaan idinka codsanayaa anoo ku hadlayo codka ururka dhalinyarada ardayda ogaadeenaya adeerayaalow hooyooyinow eedooyinow garab istaaga waa wax inaga inoo dan ah waa wax inaga dhaxeeya waa wax ummadeennu ay ku wada hiranayso waan higsanaynaa haddii aynu isku wada darro noqonnana kuwa ka midaysan dareenka iyo fikirka aynana soo saarro carruurta aynu guryaha ku hayno haddii aan soo saarro isbeddel degdega ayay waqti yar oo kooban ku keeni karaan awood aynana inagu haynin bayna iyaguna hayaan maadaamay si aan caadi ahayn wax u fahmayaan aqoonteedii iyo kartideediina ay leeyihiin laakiin innaga ayaa ka keeni kara marka aan kula xisaabtanno si joogto ah waxa ay u qabteen ummadda ogaadeynaya waan ka xumahay barnaamijkan caadi ahayn bay dhalinyaradii wadeen nasiib wanaag waxay aadeen barnaamijkii riwaayadda ayay isu diyaariyeen oo waqtiga ayaa aan ugu gaabtay laakiin waxaan aan ka hadlayo oo dhan hees ku fadhido oo waa isu ka turjumaysa ayay wadeen nasiib wanaag waan sheegnay laakiin caawa ayaad masraxa kula kulmi doontaan hadduu ilaahay idmo midhaheeda waxaa ka mid ahaa heeskaa oo waysyu haddaan nahay ardaydii dalkaan nahay urur dhalinyaro ahoo awood xooggan baan nahay
kuwaan Itoobiya meeshaan ku aragnaba arxan aanu gelino ka argoosta baan nahay mayaal guushu way dhowdahay waxaana u marag ah oo markhaati ah bulshadeennu maanta marxaladda ay ku sugan tahay iyo cadowgeenna saamaynta ku timid iyo sida uu geeska Afrika maanta kaga sugan yahay taariikh ahaan waxaa inoo muuqata dawladdii ogaadeenaya oo halkan saaran waxaa inagu waajiba bal inaynu ka fakarra kana shaqayno miiska ayaa inoo saaran tahay sida aynu u hanan lahayn una maanad garayn lahayn waynu haynaa gacanteennayna ku jirtaa laa shaka inay inaga daahayso gacanteenna ayay ku jirtaa waynuna hanan ogaadeen ha xorowdo idinkuna guulaysta waa hagaag waddamadan qurbaha markuu intuu soo jeediyo very powerful message indeed bay gaaladu dhihi yacni markuu wuxuu galo innaguna maxaan idhaahnaa waxaan leenahay allahuna ku jeceliyaa